السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولياش قيمة قائلة من البندقة داوانيسان وبرنامج كيني جنيد الصومالي ويديسو بنا يسيدي عادة أهيد فقاني بو خليل عبد علي waxaan hubinayaa inaad maqlaysaan riyaan cilada xagga codka jiray haddaad maqlaysaan waxaad ii soo qortaa waana ku maqlaa soo dhawaada dhammaantiin gambarra qaata kafeegiina soo shubta maanta waxaynu ka hadlaynaa mawduucaas kor ku xusan dowladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya gumaysato iyo jabhadda ONLF ayaan ka hadli doonaa insha Allah waxaan idinka rabnaa idinkana inaad maaragtay aad si fiican baa lay maqlaa baan filayaa soo dhawaada saad ogtihiin baa dowladda deegaanka ee Soomaaliyada Itoobiya gumaysato waxaa ka dhacay isbeddel taariikhi ah isbeddel taariikhi ayaa ka dhacay saad ogeydeenba jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ONLF oo 35 jirsatay ayaa ma aragtay ahayd jabhadihii ugu dambeeyay xornimo doonka ahaa ee la dagaalamayay gumaysiga Itoobiya ee qorigii ku bedelay qalinka markii ugu horeysay taariikhda ee jabhad qori siday ay qalin iyo wada hadal Itoobiya ay la gashay darteed gudaha u gasho oo jabhadda ONLF ay tijaabiso in Itoobiya nabad lagula noolaan karo dad badan baa aaminsanaa inaan Itoobiya marna nabad ogolayn si walba loogu tago wixii xoog lagu qaato xoog baa lagu soo dhiciyaa laakiin wixii xoog lagu qaatay wada hadal iyo walaalow ma yeelo qof xoog kaaga qaatay marka dad badan baa waxay aaminsanaayeen inayna Itoobiya dadka Soomaaliyeed ay gumaysato u ogolayn Itoobiyaanimada inayna u ogolayn inay la sinaadaan xuquuq ahaan sababtoo hadday labada u ogol yihiin waa horeete ayaa sida Kenya nabad loogu noolaan lahaa sababtoo waad ogtihiin dad Soomaaliyeed oo waxaa jira maaha kaliya dad yoga Soomaaliyeed ee wadamo kale ku hoos nool inay yihiin kaliya kuwaas Itoobiya gumaysato Soomaalida Kenya ba wada aragteen يعني شعب كيا صومالية كينيا يكونوا الحقوق ضدي وتام بالسيء مدح ضدي صوت ورتان
si xor ay ugu nool yihiin dadka Soomaaliyeedna ama jamhuuriyadda ha noqoto shanta Soomaaliyeed bal maanta waxaan dhihi karnaa magaalada Nairobi iyo magaalada Gaarisa waa labada meelood ee shanta Soomaaliyeed ku wada dhan yihiin yani magaalada Nairobi xuquuqdii dadka Soomaaliyeed oo dhan baa kumpleeda sababtoo ah maxay tahay sababtoo ah dowladda Kenya maaha isticmaari run kamana ayna qayb qaadan gumaysiga qaaradda Afrika bal Ingiriiska si qasaba dadka Soomaaliyeed ugu daray laakiin dadka Kenyaantu intay soo weerareen dhul Soomaaliyeed mayna qabsanin farqiga u dhaxeeya dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira isku khalday oo dhaya gumaysiga Kenya iyo gumaysiga Ethiopia iyo ka dhigaya sida iyadoo Kenya intay soo weerartay dhulka waqooyiga ay qabsatay dhulka Soomaaliyeed Kenya weligeed mayna qabsanin Ingiriis baa qabsaday oo yimid isaga xukumayay isagaana ku wareejiyay Kenyaatiga kale dembiga oo dhan waxaas kala Kenyana markii loo dhiibay dadka Soomaaliyeed hal mar baa jira waxoogaa dhib ka dhacay isla markiiba waa la xaliyay dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda perfect maaha laakiin waxay ku jiraan qowmiyadaha ugu saameynta badan ee Kenya ka jira runtii xorriyadu diin baa ka jirta waddanka Kenya marka Kenya halka naga dhig Ethiopia ku soo hadhay Ethiopia weligeed mayna ogolaanin iyadoo dadka ku nool ay majority-gooda muslimiin yihiin mar walba waxaa dhakada ka saarnaa laba qowmiyadood oo ah Amxaarada iyo Tigreega Amxaarada iyo Tigreegu marka weligood mayna aqbalin dadkaas ay gumaystaan ee ka badan ay dhulkoodii xoog ku qabsadeen xoog iyo kuleeyin kumayna qabsan waxay ku qabsadeen xoog marna xoog Portugiis marna xoog Ingiriis marna xoog Ruush iyo Mareykan oo isku darsamay weligood xoog iyo kuleeyin kumayna joogin kuwaasa mar walba shacabka Soomaaliyeed oo Soomaalidu ka mid tahay lagu qabanay marka mar walba waxaa jiray kacdoon xornimo doon ay ummadda Soomaaliyeed si qori isku dhiiba marba u soo waday ilaa ay ugu dambeysay jabhadda ONLF soddon iyo intaasoo sano oo halgan dheera runtii taliskii Meles Zenawi hogaaminay cusuriga ahaa ONLF jilbay ka jabisay wayna ka hor istaagtay inuu dhulkaana siduu rabo u maamusho Soomaaliyana uga soo gudbo Meles Zenawi saad ogtihiinba mudaharaadkii ugu weynaa ee lagu qabtay magaalada Oslo isagoo dhiikar ku dhacay su'aalaha la weydiinayo iyo caalamkii oo dhan oo nacaladaya dhiikarkii uu ku qaaday buu ku dhintay isbuuc gudaheed xataa markuu Oslo habeenkii ka cararay ee uu tagay Denmarkna isla jaaliyadii Soomaaliyeed ee deegaankaas joogtay baa mudaharaad ku qabatay kamuuna dambeeyay 5 bari kadib koma uu galay uu ku baqtiyay yani marka TPLF-na kamayna dambeeyay jabhadda ONLF markay samaysay ururadii midoobay ee Ethiopia oo 5 ahaa Gambela Benishangul Sidama iyo ONLF ay ku midoobeen waxay ka dambeysay 3 bilood maalinkii lagu sameeyay Oslo 24 December 2005 kadib waxa weeye iyaduna way ku xigtay kacdoonka iyo mudaharaadyadu way isqabsadeen sidii bay ku dhacday marka ummadda Soomaaliyeed ONLF wada hadal bay gashay kadib baaqi Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed soo jeediyay ONLF waxa weeye caqabado badan baa ka hor yimid muddadii halgamaysay ugu dambeysay dhaawac weyn uu soo gaaray kadib markay geeskii Afrika oo dhan iyo reer Yurub isugu tageen yani dhammaan qowmiyadii Soomaaliyeed ayaa waxay noqdeen dad jawaasiisa oo u shaqeeya Ethiopia sida Djibouti oo haweenka iyo carruurtii iyo halgamayaashu dhaleen ee ku soo qaxay ka soo carray waddanka intay qabato hadiyadu siinaysay maaragtay TPLF Somaliland oo sidaas la examinaysay Puntland oo sidaas la examinaysay Galmudug oo suufiyaashii sidaas la examinayn ilaa markii dambe xamar madaxweyne Farmaajo u dhiibay runtii ONLF waxa uu muuqday marka halgankaas aan saaxiibka lahayn aan xuduudka lahayn ee reer galbeed iyo caalamkii oo dhan isu kaashadeen iyo Soomaalina ugu biirtay dhulkan dhul Soomaaliyeed way xuquuqdan qarna waa xuquuq Soomaaliyeed waan khayraadkii Soomaaliyeed bal inay tijaabiso dad badan waxay ku eedeynayaan ONLF adaad diidan qoriga loo ordayay haddaad qoriga dhigto xuquuqdeena Ethiopia naboo noo ogol yahay dad badan oo marka madaxda jabhadda ONLF oo guddiga fulinta u badan yaa waxay u arkeen maadaama Prime Ministerku ku baaqay dimuqraadiyad iyo wada hadal iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda inay nabad ku helayaan in la tijaabiyo sidii ba ONLF ku tageen runtii Prime Minister Abiy Ahmed wuxuu soo doortay Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweyne ku meel gaar ah u magacaabay dadka Soomaaliyeed ee jabhadiina gudaha gashay soo dhaweyn fiican kadib waxaa aad loogu hanweynaa oo lagu fakarayay inuu Mustafa oo lagu tumaynin aqoonyahana inuu bulshada iyaga ah ee muddada badan dhibkii xasuuqa soo martay
marka koowaad dadkii la dulmiyey xuquuqdooda usoo dhicin doono oo dembiilayaasha uu la xisaabtamayo si buuxda oo feera oo cadaalada oo maxkamad la yaqaano uu mariyo haddii uuna marin karinna in uu maaragtay dadkii aan laisku mashquulin ee looga gudbo wixii kale la samayn lahaa iyo sidii loona noolaan lahaa waxaa dhacday marka mustafa markuu xukunka yimid jabhadiina uu soo dhameeyey isla markii ciidamadii degdeg buu hubka ugu ururiyey ciidamadii jabhadda onelef wuxuu u kala qaaday qabiil qabiil soo dhoweyntii loo soo dhoweeyey ciidankii weji xumo iyo xataa magdhowgoodii lama siinin magdhowgii loogu talagalay xataa etoobiya ugu qoontaysa ciidamadii jabhadda sidii ahayd looma siinin xadgudubyo badan baa ka dhacay runtii oo meeshan aan ka wada sheego hadda lifekan aan rabin aad iyo aad u xadgudub ahaa wax walba waa la sameeyey hubkii baa lagu wareejiyey ciidankii baa lagu wareejiyey si walbuu yeeli jiray baa loo yeelay runtii waxay ahayd mar haddii sidii uu rabay oo dhan loo yeelay inuu ammaan ciidanka iyagaa siiyo mar haddii agoontii dadkii aabbayaashood laayay uuna u dabagelaynin mar haddii xuquuqdii jabhadda onlf iyo halgamayaashii xaqoodii uuna siinaynin mar haddii wax walbo jabhad haysay hadday ahayd qori iyo hadday ahayd iyo wax walba ay u dhiibeen oo ay aamineen waxaa fiicnayd runtii inuu damiir intuu yeesho intaa ka badan uuna ku mashquulin wiilashaa soo halgamay ee dhiiggoodii qaaligaa iyo naftoodii iyo maalkoodii usoo koray mustafe markuu arkay in jabhaddii hubkii ay dhigeen markii uu arkay inay aamineen oo isu dhiibeen wuxuu meel walba idaacaddiisii iyo telefishinkiisii la soo istaageen baal caraatan oo ah waa saan weeyaan waa qabiil beesha ogaadeen ka yihiin jufa hebel weeyaan kan bay yihiin isagoo oo welibana bilaabay madaxdii jabhadda inuu madaxa midba midka kale u geliyo midba midka kale cadow uga dhigo midba midka kale inuuna salaamin ugu qaado runtii arrintaa iyadaa dad badan baa fahmi waayay sababta dad badan baa waxay fahmi waayeen war ninkan ma lagu qasbayaa oo ma dowladda federaalka waxaan ka shaqaynayso ilaa waa gumaysiye miyakaa waxaan alifay oo leh maaragtay jabhadda hala caayo oo qabiil weeye hala dhaho sharaftaa laga dilo maadaama ay tahay ururka keliya ee organizeka ee dan soomaaliyeed u taagan ma in la kala tuuraa la rabaa si ay isugu soo horaan dad qabiilaystayaala oo masaakiina oo waxba iska difaaci karin oo xuquuqdooda ka heli karin oo jawaasiis hogaamiyaan miya maxay tahay weerarka xagu ka socdaa mustafa meel walba waa lagala hadlay si walbaa loola hadlay lagu yiri war walaal maxaa kaasi ah war aayaro isdeji waddanku waad xukuntaa hadday mujrimiin jireen haddii maalin walba marka mustafa maxamed cumar wuxuu la soo istaagaya tv-ga intuu meel shir ku qabto hooyooyin rafaasan oo lasoo kursaday oo silacsan oo waxba siinayn intuu meel qoraxa soo furiisiyo yuu ku qasbaa inay sheekeeyaan iyaguna waxay isleeyihiin ama xuquuqdiinii wuxuun laydiin soo dhiciyaan markaas wuxuu la soo istaagay onlf ayaa idiin diidan inaad xaqiini heshaan onlf ayaa idiin diidan in aad maaragtay gartiinii ladiin qaado onlf ayaa ladiin diidan su-aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay war waa kana median freegan ku hadlaynaaye mustafa onlf ma xukun bay gacanta ku haysaa wasaaraddii garsoorka ma onlf baa ku fadhida xukunkii deegaanka ma onlf baa ku fadhida waxa oo dhan adaa ku fadhiya adaana xukuma adaa magacaabay hoggaanka cadaaladda adaa magacaabay ka maxkamadaha adigaa qofka allaala hadday onlftaa xitaa xidi kara oo sii dayn kara amarkaa ay ku baxayaan meeshaad adigu eedda qaadan lahayd ee dembiga qaadan lahayd ee ceebta qaadan lahayd ee xaqiraaddii lagu sameeyey dadkii la dulmiyey oo dhan eed adigu kaska u dulmisay eed raggii familada dadka xasuuqay aad garaadaha ku taxaysay xataa kamaada xishoonin xataa haddaad ku taxaysay inaad kaamar ka duubin bay ahayd kuwii meydka intay iyagoo dilahaya isha qoryaha ka gelinaya iyo afka ee cagaha saarayay iyo adiga markaad nin 100 nin soo dilay aad ku tasho kornaylnimo waa isku mid baatiin sababtoo ninka waxaa samaynaya nin hooyadaa soo kufsaday oo walaalkaa soo dilay oo inadeerkaa soo dilay markaad aragto mustafa darajo kusii taxaya waxaad dareemaysa qof walba waad garan kartaa meesha iyada cadaaladda ka imaan karta iyo wanaagga ka imaan kara eeduna cidda ay leedahay waynu naqaanaayo waa mustafa maxamed cumar iyo kuwii oo isagu aan dembiga kuma eedaynayno etoobiya number 1 federaalka etoobiya yaa ka mas-uul ah sababta mustafa dadku soomaalidu mayna dooran xataa mustafa wixii dembi u geystay etoobiya number 1 dembiga iskale mustafa laakiin wuxuu dembi leeyahay intuu dadka masaakiinta soo ururiyo maalin walba inuu ku weersado oo uu sheeko khayaali ugu sheekeeyo oo uu dhaho onlf baa idin diidan in xuquuqdiinii la dhaciyo in maaragtay laga hadla arrintiin onlf baa diidan beenta intaa leeg ee qabiixa ah ee aan yani dad badan baa waxay isweydiinayaan mustafa ma waashay war mustafa ma waashay
kala odayaasha deegaankii joogay ma waxa lagu waayay qof damiir leh hadday noqoto kuwa jabhadda iyo hadday noqoto kuwa dhaqankaba oo dhahwar ninkan dadka ka aamus war wiilkan yara hadduu waalan yahay ma wax qabtaa la waay qofka hadduu waalan yahay waa la qabtaa oonaf waxba ma xukunta awood gacan kuma hayso waxba ma haysato iyadaa shacaba oo si raba laga yeelaya oo caburin ku jirta oo maalin walba madaxdooda la xiraya dadkaa la xirxiraya seebay wax u hor istaagi karaan yaa loo sheegayaa sheekadan carruurta ah ee mandhalayska ah ee wax maqabadka ah annagoo og hadda waxaa weye maalin dhaweyta mustafa maxamed cumar walaalkay wuxuu booqasho ku tegey magaaladan ay dhahaan jaamaca dubbad weyn oo weyn oona la bayaanka ka soo saartay xooggiis jaaliyadahoo dhan taageeraday shacabka iyaga u muujiyeen walaalahooda ee la xasuuqay jaamaca dubbad nasiib daro saraakiishii jaamaca dubbad xasuuqday mustafe darajo xukun buu isugu daray hal maalinna xilka muuna qaadin dhammaantood ilaa haddana darajooyinkii bay haystaan meeshii uu isagu eedda qaadan lahaana oona laf buu rabaa inuu raro maxaa marka nasiib darro noqotay walaalkay mustafe maalin walba inuu dadkii deegaanka ahaa uu ka soo qaadayo dadka waa la gumaystaa waa log yahay dadka in la caburinayo waa log yahay dadka dad aan u qalmin inay xukumaan in xoog ku haystaan way ogyihiin intaba laakiin in ilaa xadkaas lagu digto oo qabinnimadaas iyo fulinimada noocaasa dadka waa warankii oo dadka lagu ligligayo weeye maalin walba hooyooyinka sakaraadka ee lasoo kufsaday inta qoraxda lasoo fariisiiyo beenta loo sheegayo ee kuwii u halgamayay ee dartood loo dilayay ee ONLFta een awoodda gacanta ku hayn ee maamulkii deegaanka aan waxba laga siinin in maalin walba dusha laga saarnaado oo dusha laga furulaado wax saxan baa arrinta iyada marka waxaan ugu baaqayaa dowladda deegaanka haddayba dowlad tahay iyo dadka maamulaya oo mustafa ugu horreeyo arrintaa waad ku soo celceliseen arrin garana ma ah arrin feera ma ah arrin macquula ma ah idinku ONLF dadka ka hor keena sileyn laakiin arrimaha noocaas oo kale waa arrimo sensitive haddii madaxda jabhaddu khaladkooda dartood ama shacabkii ONLF u nasab sheeganaya ay noqdeen fulayo aan ka mudaharaadi karin falalkiina foosha xun fulayo aan shir saxaafadeed intay qabtaan cambaarayn karin sheekada fulaynimada ee nacasnimada ee madaxweynaha deegaanka oo runtii u qalmin ummadda intaa dhan inuu xukumo marba hadduu ONLF leeyahay iyagaa diidan waxay ka dhigan tahay waddanka isagu ma xukumo meeshuu marka dadku u sheegi lahaa cidda xukunta ee shaqadii qaban lahaa inuu maaragtay ONLF dusha ka saarnaado arrin la aqbali kara maaha waana arrin saxa maaha waxaan ku baaqayaa mustafa inuu arrinta iyadaa ka waantoobo sheekada mandhalayska waad ku soo celcelisay waxaa la yidhi fulaygu hadduu kaa adkaado kaama kaco maanta oo dhan dushu kaa saaraan qofka fulayga geesigu markuu arko qofku ka adagaya mar labaad kuma noqdo yani libaaxu neefuuna diloonin ma cuno libaaxu markuu arko baktiga ma cuno sababta wuxuu ogaya inuuna dilanin ma u arka nadiif raganimo uma arko mustafe ONLF kama adkid kamana taageera badnid gumaysigaasaa shacabka caburinayo oo lugaha hayo oo adigana dusha kaa soo saaray waxay ahayd aliistii shacabka iyaga xuquuqdooda waxaad u soo dhicin karta inaad u soo dhiciso waxaad u qaban karta inaad u qabato saad boogahooda u dhayi karta inaad u dhaydo waxa weeye maanta xukun kuguma haystaan kuma dacaayadaynayaan kuguma mashquulsana laakiin everyday waad ku soo celcelinaysaa waxaad noqotay fulay qof ka ilhelay ama doqon qof ka ilhelay waxaa la yidhi doqontu 12 indhood bay leedahay 11 indhood waxay ku aadisaa shisheeyaha ma aragto shacabka Soomaaliyeed maalin walba city baa u baahan helin xasuuqa aad ka hadlaysa everyday buu hortaada ku dhacayaa maamulkaaga galaya everyday haddii aad u xisaabinayso kuwaaga taagan wax baastiga waxa la soo dhaafay dadku badanaa waxaa jirta nin aqoon-yahanabaa waxa mar walba wuxuu samayn jiray calaamad sariirtiisa ka soo horjeesta ku dhijisan jiray oo la dhaho maanta keliya ummadda waqtigeeda waad ka dhuminaysaa maanta inaad ku dhijisteen maanta waxa aad khaldamaya eed sixi karto inaad saxdo garsoorka wadadeedii maada marin adaana ka gaabiyey eedda koowaadna adigii Ethiopia sare Ethiopiyadu kasbayba u gashay adiguna haddaad leedahay cadaalad hala raadiyo oo runkaa tahay maalinkaa timid shaqada ugu horreyseed qabatay ahaan lahayd iyo dembiilayaashii la wada yaqaanay oo xeelka ka qaado oo dad maaragtay nadiif u dhibtay laakiin taa beddelkeedii dembiilayaashiina darajaad ku saxday kuwii gumaysiga la shaqaynaya dadka la xasuuqayo oo dhan maamulkii baad u dhiibtay mar haddaad labadaa joy samaysay ma awoodi kartid miyaa dadka inaad ka dayso
digashada iyo ku jeesjeeska iyo ku qosolka haddii adiga aad u aragto maaragtay dhiigga dadka aad mar walba hooyo xuquuqdoodii la duusiyey dad baa walaalahood intii la kursaday kiniya kharaar afku biyo u buux cadaaladna waaye oo shib ah maalin walba inaad ku jeesjeesto ood ku eedayso isla iyakii aad dembi ku eedayso walaal waa laga fiican yahay waxaase aan la yaabanahay jabhadda ONLF ilaa xad inay waxaasoo dembiya iyo waxaasoo eedayna sababtoo ah wax aamusku karaale ahaanshu noqonaya war ha laydin xidho maadi ha la xidho guddiga fulinta ha la xidho dhalinyarta ha la xidho war xidhayu ceeb ma ah waxaa ugu daran xuquuqdiinni inaydaan ka hadlin war dulmiga iyo fulaynimada intaa la eg maxaa idinka ah fulaynimada intaa la eg maxay tahay bini aadamku hal mar buu dhintaa ma 100 jeer baad dhimanaysaa amxaarada iyo tigreega iyo oromada yaad ka cabsanaysaan waay aad xuquuqdiina u sheegan laadiin waay ninkan idin dul taagana maalin walba sida isagoo quraan idinku akhrinaya idinku eedda beenta idinla daba taaganaad u dhiila war waxaad sheegaysa maxay tahay warkaalay oo sheeg caddayma keen xaggee bayaankaan soo saarnay mujrimiinta la daayay xaggee ku naray ONLF xaggee dembi ku gashay iyadaa figtame iyadaa gabdhaheeda ugu qaalisanaa raggeeda ugu qaalisanaa taageerayaasheeda ugu qaalisanaa naf iyo maal iyo dhiiggeedina iyadaa u soo hortay dhulkan oo tigree inuu heerkaasa u jabo iyo kaasa u ahaa dadkii saasa in lagu eedeeyo runtii arrin la aqbali kara ma waxaan leeyahay madaxda jabhaddu sariirta ay hoosta kaga jiraan waa inay ka soo baxaan sariir inaad hoosta kaga jirtaan maalin walbana wiil yar ama gabadh yar tvgii deegaanka uu ka dacaadeeyo ONLF idinkuna haddaadaan nabad baan idiin keenay nabaddii waan aragnaayo waraaqo waxba nooguma wadaan cadaalad shacabkii soomaaliyeed deegaanka ama wada helayaan iyo maamul wanaag dacaayadii uu meytida malaga day leeyahay iyo jabhadda masaakiintaas dulman ee xuquuq iyo maamul iyo wax walba laga qadiyey caraatanku ma ka joojin kartaan at least ma dhihi kartaan warbaabadna qabsateen daaya madaxda jabhaddu arrinta iyada iyakaan leeyahay runtii waa ceeb bay idinku tahay inaad intan ka badan sii daawataan ood maalin walba sheekada intaad maqashaan idan ka hadlin waa inaad press release soo saartaan oo dadaan eedan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa propaganda aan waxba kama jirtaan waa propaganda mustafa wuxuu ku qaranaya maamul ma yaqaan mustafa waxa way tuugu wada dhibay degaankii oo dhan tacliintii waa zero caafimaadkii waa zero hooyooyinkii way umul raacayaan wax wanaag oo shacabka Soomaaliyeed maanta u yaala ma jiraan shacabkii city iyo xabadda saa loogu lisay oo ciidankii federaalka iyo dabaqoodiyadii canfarta iyo shacabkii canfartu intaba ay ku goobanayaan mustafa mana hadli karo idaacadna kama sheegi karo wargeysna kuma soo qori karo umana heelin karo ninka intaasoo wax dembiga hortiisa ku dhacayeen hadli waayey yaa maalin walba wiil ONLF oo shahiiday oo dhiiggiisii iyo naftiisii u gaday dalkiisii iyo dadkiisii waxay la daba taagan yahay qofka noocaas oo kale taa lagama aamuso qofka noocaas oo kale lagama aamuso war waxa weeye hal la dhinto waa la iska adkaadaa laakiin gunnimada way xuntahay inaad qof khaldan maalin walba madax u raaracisaan oo iska ammaantaan oo qof aan maamul aqoon mar walba idinka sheeka idinka dhigto يعني جامعة دبت بانتي وايساقي او انا لفي اوغادي اني نعب يين با laga yaabay maanta oo dhan aan ku dul caayo mujaahidiintii iyo aqoontii iyo dadkii banayaasha isagoo 10 mujrimiin guryahan u jiifaan boodgaaran u yihiin arrinta iyada arrin la qaato ma arrin saxan ma mustafa maxamed cumarna waxaan leenahay waad xuduudkaagii baad dhaafaysaa hortaaba kuwa xuduudkaagii dhaafeen runtii wayna imanaysaa maalin dhow indhaad cirka u dhisaysaa laakiin dhulkaad arki doontaa waxaad ka dhigatay shacabkan mar haddaad ka adkaatay doqon aan kicidda aqoonin baad noqotay oon aqoonin ixtiraam oon aqoonin bini aadamnimo intaasoo tuugba deegaanka u magacowday intaasoo hanti booba ka jirta intaasoo maamul xumaa ku jirta intaasoo cadaalad darraa ka jirta intaaba shacabku intay liqeen bay shibyiin umul raaca hooyooyinka maalin walba waad aragtay wax ka dhacay qandaraasyada beenta iyo hanti boob caasimadda jigjiga iyo dadka guryahood iyo subarlagooyinkooda lagu dulxoogayaa oo lagu tooriyeyna oo lagu bureynayaa maamul xumida iyo cadaalad darradaana adigaa taagan oo waxba ka qaban karin adoon wax ka qaban karin baad qabuuraha haddaad aragto nin baastiga ku mashquulsan waa nin wax maqabada weeyaan waa fadhiid weeyaan dadku waxay ku mashquulaan baastigana waa history haddii la xisaabtamina hay'ada garsoorba oo la xisaabtamaa la sameeyaa midnana ma la samayn hay'ad garsoor ma lihid hay'ad inta qofeed xirtay hal qofood maxkamadda soo hor istaagtay aad dembi ku cadaysay oo cad ma jiro wixii mujrimiina hal qof oo intaad maxkamad keentay dadku wax yeelay intaad keentay oo la markhaati furay
dadkii iyakaa ay ku qanceen oo cadaalad ay heleen ma jirto adoo waxaasoo khalada dhex fadhiya oo waxaasoo ceeba dhex fadhiya oo waxaasoo dulme dhex fadhiya inaad shacabkii maalin walba haddana idaacadda intaad soo istaagto sida adoo afhayeenkii etoobiyada federaalka ah shacabkaaga meeshaad ka hadlay baahidooda iyo dulumka lagu hayo yaad maalin walba waxaad ka hadlaysaa saasay tahay iyo TPLF baa inta martay idaacadaha iyo aljaziira meel walba dhex fadhida sida adoo afhayeenka federaalka ah inaad noqotay afhayeenka federaalka soomaalidana nin hogaamiya oo maamula oo ka naxaya oo ceelasha u qoda oo isbitaallo u qabta oo hooyooyinka umul raacaya keergareeya oo maamulada xunxun ee fadhiidka ah ee iskoolada lacagtoodii macallimiinta beenta ah ee magacun macallimiinta ka ee carruurtii bilaa mustaqbalka dadku waxay ku dagaalamaan waa mustaqbalka waa carruurta deegaankaas hal meel oo iskoolka sax wax lagu barta ma jiraan macallimiinta oo dhan waa wada bug weeyaan lacagta la iska dalbashaa guddoomiyaashu waa mujrimiin qaad iska cuna aan dan ka lahayn dadka maamulka goboltoorayaashu waa saa awooddu waa ku takrifal miskiinka dhabarkaa looga jiifaa qof walba eex iyo qabyaalad iyo reer hebel keliya yaa wax lagu helayaa miskiinka oo dhan soo gaajaysan dhulkiisii khayraadkiisii wax xuquuqa kuma laha waxaasoo dembi oo dhanna waxay dusha ka fulaysaa mustafe tiimo madaxu yahay runtii hadduu dhaho mustafe isagoo intaasoo dembi u yaallaan isagoo intaasoo howla qabyo ka tahay inuu maanta oo dhan u helo wakti iyo ma aragtay wax tegay oo baasti ah ouna waxba ka qaban karin wuxuu isagu ignoor gareeyey wuxuu diiday inuu dad kale ku eeday runtii waa too much weeyaan waxaa weeye ilaa hadda waxaa la laayahay waxaa weeye waan ognahay etoobiyaanku aad bay u yihiin dad smarta sababta dadkay keenayaan way yaqaanaan soomaalida dadkay u magacaabayaan aad bay u yaqaanaan duntooda yaqaanaan dabeecaddooda yaqaanaan dhaqankooda yaqaanaan waa daday og yihiin 50 sano hadday waddanku uga tagaan inay waxba bedeli karin qowmiyadaha kale si xor ay u magacoodaan iyagu maamulkooda oo kor loogama keeno laakiin qowmiyaddan dhimatay ee soomaalida marba mid baa intii loo dhiibo aan siyaasadda alifna ka aqoonin baana ka aqoonin yuu wuxuu ku garaacaa derbiga markaasaa duur cad ba intay lacag xaaraana intay ka dhirgaan iyo suudadu soo dul xiranaya ummad wada gaajaysan oo wada umulo raacaya oo inan ka naxaynin markay in yaroo fursada helaana meesha wax kale wanaagsan oo lagu farx allistiba waxba uma keenayaan xataa markay hor yimaadaan waxa ku farxaani hadday ka yar qoslilayaan maxaa kaa dhici lahaa markaasna waxay u gelayaan waxay u taarayaan cuqdad iyo karaahiyo iyo nacayb iyo baroor iyo waxay soo xasuusinayaan hooyooyinkooda iyo aabbayaashooda la dilay oo aynan waxba ka qabanayn arrinta noocaasa runtii anugu dadka intay hoos joogaan xamilaya ee iska dulqaadanaya ee iska samraya runtii waa dad iga geedsan oo iga calolooday dadkaa hor fadhiya daddaa oo nacdadiya nacladu dhashay nagala hortag wax anu qofkii intaa iga hor keeno intaasoo beena waan ka hortagi lahaa runtaan u sheegi lahaa habelay toogtaba jidkaba halkugu toogto dhimashadu waxa weye mar bay dhaantaa waxyaaba beenta noocaas kale in la dhegeysta maaha war beenta noocaasa iyo dulumka noocaasa iyo xadgudubka noocaasa wax la dhegeysta maaha waxa weye wiilasha yaryarka ee gumaysiga ku soo koray aan aqoonin xorriyad aan aqoonin maamul aan aqoonin meesa loo socdo iyo meel aan loo soconin runta in loo sheego weye oo loo dhaha ayro naga fadhiista waxa ma taqaanaana waxna ma maamuli kartaane dabadhilif baatiin ayro fadhiya cadaaladda onlf iyo waxay onlf tahay midna lagu weydiin maaye markay onlf hadlaysay maadan hadlaynin markii tigreegu dadka sida arigii u leynayay ee waddooyinka sida caws yani kal khashab yani sidii alwaax la qoray dadku ay meydkoodu ahaa cidda keliya codkeeda kor u qaadaysa waxay ahayn onlf iyo taageerayaasheeda dadka mudaharaadaya meel walba taagnaa waxay ahayn onlf iyo taageerayaasha onlf waxay ku qoran tahay baal dahaba oo taariikhi ah oo la hilmaami karin waqti soomaalidu gun ahayd oo gun dhashay ahayd cidda keliya ee tigrey faashiista ah damaaciga ah hor istaagay oo damaciisii benjarin waa jabhadda onlf iyo taageerayaasheeda qof caadi ah oo fayow oo damiir lehna runtii af xun uma quudayo haddaad aragtaan qof onlf ku soo noqonay waa qof damiirku ka tegey waa qof bilaa akhlaaqa ama waa qof jaajuusoo neceb wax walbo wanaag iyo wax walbo sharaf iyo wax walbo xorriyad la xiriira laakiin qof in yar oo sharafa iyo in yar oo soomaalinima iyo in yar oo wadannimoa ku jirto bal ee iska dhaafay soomaalidii jamhuuriyadda ee dhihi jirtay magaca o'du waa qabiile maxaa qabiilka loo wadaa yaa intay garan waaqsatay xaqnimada iyo cadaaladnimada iyo onlf qadiyadeedii taageertay dhammaantood markii dambe runtii aad baan uga xumaay in mustafa cumar maalin walba
isagoo og inta hawle ka qabya isagoo og inta maamul xumo ee gobol walba iyo degmo walba hortaala isagoo og degaankii inuu meel u ka socdo iyo meel ay ka socdaan aan jirin isagoo og 400 oo barmiil maalin walba in la dhaafiyo wadada goday ilaa qabridaare intii la dhaafiyo waqooyiga Itoobiya loo qaado iyo Addis Ababa kharashka ka soo baxana aan degaankii shidaalka laga soo saaray bini dib loogu soo celin deegaanka Soomaaliduna uuna xisaab xir iyo waxba ku lahayn canshuurna uusan ku lahayn isagoo waxaasoo dulma arka hiilin karin raganimadeedii lahayn kartideedii lahayn inuu maanta oo dhan wiil walaalkiisa amiin adeerkiisa oo isaguba dhulka iyo dadka dhiigiisa u habeeyay oo agoontiisii oo joogto uu maalin walba ku digto oo maalin walba masabido oo maalin walba ku xadgudbo waay aad ku dhacday garsoor haddaad u baahan tahay waay aad u samayn weydi maxaa la sugaysaa berri maad maanta ka bilowdi maad maanta mujrimiinta jooga ee dadkii ONLF inay dhaleecayso maxaa looga baahan ONLF awoodna maysto waxbana ma xukunto xaqna uma laha inay wax xukunto bal aynay mudaharaadaa loo diidan yahay xataa fikirkeeda cabirto shirarkeedii baa loo diidan yahay waryaa who are you fooling yaad u been sheegaysaan yaad siraysaan war dadka Soomaaliyeed caqligooda yaa lagu ciyaarin dadka Soomaaliyeed caqligooda yaa lagu ciyaarin masaakiin haddaad hesheen runtii dadku hadday damiir leeyihiin dadka noocaasa mayna soo hor istaagin intay mudaharadaan bay guryaha ku jiraan ka cayrin lahayn dadku hadday damiir leeyihiin way laakiin waa dad kilaaba way kilaabtu marka mar walba dadku markay kilaab noqdaan ay khanaasiir noqdaan ay duloobaan ilaahay baa wuxuu leeyahay ma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydikum dad xun hogaamiye xun bay leeyihiin laakiin dad fiican hogaamiye xun marna ma yeeshaan hadday dad sharaf leeyihiin hadday dad qadiyad leeyihiin isla markiiba dulumkooda iyo qof walba dhiigooda daadiyay intii xilka laga qaado oo maxkamad la saaro iyo cadaalad buuxda la siin lahaa laakiin si u kasta oo bareeraba meeshii cadaalad loola aadi lahaa darajooyin iyo korneyl hebel iyo janan hebel iyo abaalmarin halyeyga qaranka ee federaalka Itoobiya baa la yiri mar haddii la yiri laguma daynan xitaa habaal waxa gudbo darajaha la siiyay shib lagama dhigin kaliya shibtii baa la leeyahay war ilmaade rayaalo dadka laayse guryahoodii dhacde maamulkii ka qadise hantidoodii boobte wax walba xuquuqda ayaan xaqirtay federaalku waxba ugama soo dhicinaysaa dhiigoodii oo la daadina uma hiilinaysaan oo maalinka canfar soo weerarto ama oromo soo weerarto ama amxaara soo weerarto waxba ugama qabanaysaan ma hadli kartaan melidiin xiniyo boolis melidiin aad maaragta ku difaacdaan marka at least ma awoodi kartaan inaad uun ka daysaan digashada iyo beenta iga daran wax walba mogtay adduunka beenta wax ka xun ma leh idaacadda batan ONLF baa waxay diidan tahay ONLF baa waxay diidan tahay in cadaaladda la maro ONLF baa waxay diidan tahay in dembiilayaashii la sheego ONLF baa waxay diidan tahay in dembiilayaasha la xisaabiyo war ONLF maxaa tahay adigu ma cirfiid cirka ka soo dhacayba ma waddanka ay xukumaan ma garsoorkiiba ma maxkamadiiba say ONLF ku diidi kartaa beenta intaa la eg ee qaawan ee idaacadaha lala soo fadhiyo ee TV-ga lala soo fadhiyo ee ummadda laga xishoonayo runtii waxaan aaminsanahay Mustafa iyo saaxiibadiis af Soomaaliga ma fahmaan af Soomaaliga mana ixtiraamaan qaylada iyo fariimaha shacabka ee weelmayra diirshada naga daayeen ma fahmayaan laakiin amxaariga fahmi doona amxaarigana waan soo baranaynaa maalin dhow live amxaariga markaan ku soo gallo markaasaad joojin doontaa waxa wadaana qurunka si amxaarada iyo dadka idin xukume ee xilka idin dhiibay ay idin fahmaan waxa deegaanka wadaan sababta af Soomaaliga ma fahmaysaan qofka Soomaaliga ma qadirinaysaan damiirkiisa wadaninimo iyo ehelkiisa iyo dhaawacii soo gaaray midna ma xirinaysaan laakiin shacabku marka halka intay soo fadhiistaan amxaariga ka hadlaan idaacadda amxaariga ka hadlaan ee TV-ga Itoobiya ka hadlaan ee Malazanawi nacalada isaga iyo aabihiiba ay tiriyaan ee xadgudubka uu shacabka Soomaaliyeed iyo maamul xumada dad xanuunsan oo siga intuu soo diro dadka Soomaaliyeed maalin walba lagu jeejeeso oo baarjidkoodii la dhaco oo maamul aan cadaalad loo keeno oo maanta oo dhan maaragtay lagu digto oo garsoor waayaan oo mujrimiintii hooyooyinkood qalay ay ilaa hadda taagan yihiin yani wax dhacaysa ma runtii maanan jeclayn inaan halka u soo noqon waxaan u malaynayaa anigu markaan meelo badan markaan fiiriyo waxaan siri Mustafa Maxamed Cumar walaalkay waa nin habaaran baan siri waa nin habaaran oo ilaahay baan khayr la damcin ilaahay baan wanaag iyo inuu xasilo la damcin sababtoo mar walba dadku ka degaanaystaan war ninka hadduu xasilayaaba isaga gacmihiisa isaga qashinka gacmihiisa kula gelaya oo urti soo saaraya oo dadka inay ku soo jeestaan oo maamulkiisa iyo xumihiisa tusaya oo markaas dhado war ninkan laga aamusiyay war iska daaya dhadaan
warbaniyo waa gumaysi baa meesha keenay mar walba nin baa joogi lahaye idinku waxa meelaan dooranay mar walba Ethiopian baa keenay iska indhatiro markaas dhaado isaga intuu soo baxo qashinkiisa u soo faq oo boogiisa gacmaha ula gelin oo nin walba nabarka ka damqin soo markaa ma dhacayso in aan meel walba laga afuufo isaga la dagaalamo lala mudaaharaado oo la dhaleecay ma imanayso waxaan wallahi yani wayna dhaawacaysaa raggii dhiigooda dadka u huray ee naftooda u huray ee hooyooyinkoodii iyo aabbahood ay ka gablameen ee agoontoodii taagan tahay ee waxba loo tiraynin lagu wiirsaday ee la siray ee Malay Abaay Axmed xitaa uu khiyaamay ee cadaalad iyo xorriyad midna aan haysanin een tacliin haysanin caafimaad haysanin dadkii noocaasa in haddana loogu sii diro aflagaado iyo masabid wax la qaadan kara maaha waxaan ku leeyahay madaxda jabhadda ee gudaha joogta war mar walba maalinkii ilaahay idin qoran baad dhimanaysaa waxaa weeye doqontu hadday kaa ilasho kaama kacdo Abaay Axmed iyo nimanka amxaarada iyo oromada iyo oromada qowmiyad ahaan ma sheegay amxaaradana dad ahaan ma sheegay maamulka dadka jooga wallaahi niman waxaa la yidhi niman shantaada kaa celin sharci kaama celiyo dadka haddii xuquuqdiidii aydan hadlin oo idan meediyaha ka hadlin oo qofkii idinku xadgudba aad iska qaban weydaan maalin walba idinku soo celin cajalka qabiixa ah ee doqonnimada ee fuliynimada ee maalin walba Mustafa Cagjar uu daarahay qof walba oo beesha ogaadeen nacab markuu ama islee way nacab yihiin markuu ag marayaba cajalka xune oonel waa qabiil oonel baa ka diidana beenta buu daarayaa marka madaxda jabhaddu waxna inay daawata ma waxa la idin doortay inaad difaacdaan karaamada mabda waxa weeye sharaf la weeye mabda waxa weeye waa mabdi dhulka Soomaaliyeed difaaca weeye mabda waa mabdi naf iyo dhiig iyo maalba huray weeyaan dadka noocaas in lagu ridiyo kulgareeyo oo lagu caacayo oo lagu jeesjeeso ma waxaan dhihi lahaa gudoomiyaha iyo guddigiisa fulintu boorkaas ka jafaan waxa weeye Ethiopia maaha ilaahay idin abuurtay idin mana laha nabad baad la gasheen nabad baad qaadateen xabad ma ridaysaan sidii jawaar kala haleydin xiro sidii oromada kala haleydin xiro sidii amxaarada saraakiisheeda loo xiro haleydin xiro sidii tikreega loo waarsan haleydin waarsado wargunnimada joojiya waliyan dhaqan uma ahayn ONLF waligeed maalinkii ay xisbiga ahayd iyo waligeed xaqeeda way kaali jirtay shacabka Soomaaliya xuquuqdooda way kaali jirtay way sirra hoostooda u jirtaan way aad madaxa la foorinaysan maalin walba Mustafa intuu buugan beentay qubxiga soo qaato uu dushiina ku akhrinaya uu leeyahay iyaga diidan iyaga saale Mustafa wuxuu rabaa inuu idinku tijaabiyo wuxuu rabaa walaalkay aqoon siyaasadeed oo bisayla male weligii ummad muu soo xukumin xataa one community hadduu iska sharaxo xaafad Dheexbuur lagama soo dooranayo Mustafa gumaysiga keenay kaliya baa keenay haddii xaafadda hadduu tartamo xaafad ku taala magaalada Dheexbuur lagama dooranayo Mustafa cid cod siinaysa malaha sababtoo boqolaal ka karti badan baa jira oo ka maamulo yaqaan oo dad kala yaqaan sababtoo hadduu dad la dhaqan yaqaano ummad taageertay oo soo dhaweysay intaas oo caraatan ku gufteen ummad wax walba oo ay hayeen siiyey intaas oo caraatan kulama soo noqdeen runtii waxay muujinaysaa inuu maamul aqoonin hogaamintii baa ka dhuntay marka ma garanayo ummad sida loo hukumiyo meel khalad uu fadhiyaa in baana keensaday meesha iyada marka maalin walba waa inuu meesha qashinka iska soo faqdo oo marba meydka soo faqdo oo marba dadka masaakiinta ee wax u hadlala uu ku soo noqdo ku soo xiran noqdo waxa weeye Mustafa waad ogtiin kama hadli karo gobolka City shacabkooda kama hadli karo waasidooda kama hadli karo dhaqankooda kama hadli karo kamana hadli karo shacabka faafan dadkoodana kama hadli karo uu ka istaxyoonaya yani shacabkan gaashaamo hal eray ma dhigi karo xun shacabka kaliya ee uu ku dulmayo ee dusha ka korayo ee sida ximaarkii maalin walba u dacaydeynayo waa beesha awaadeenka iyo wax la xiriiro weeyaan arma garanay beesha awaadeenka waxa yeeshay gooni yeeshay isaga iyo meeshu kala dagaashanay midna ma aan fahmin yani maalin walba kuwaas u saadushu u saaran yahay isagoo Israa'iil waa lagu jeclaan dhinac wuxuu leeyahay Ethiopiankii baa ku jeclaano waxay ku arkeen xorriyad iyo sharafta nacabina tahay dhinac wuxuu leeyahay qabaa'ilada qabiilka awaadeenka nacab oo dhan ba iyagana waxay ku dhigi ninka baa awaadeen dab gelinayay xaqiisa mara wax xisaabo laakiin dulmigan ku sameeyay dad la dhashay oo waxba yeelin dadka naftoodu huray agoontoodii banaanka joogtay ee uuna garabna siinayn waxbana tarayn ee caraatanka aabayaashood iyo qadiyadoodii ku xadgudbayo midna ma xeerinayo marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal waxaan dhihi lahaa arrinta iyada ah laga hor yimaado waxaana looga hor imanayaa si sharciya war cabsida la iska daayo raggiina gudaha jooga shir jiraa'id qabta shira cambaarey
waxaad ku dhahdaa madaxweynuhu wuxuu sheegaya waa been waa khuraafaad onelf meelay dembiilo ku magacooday male garsoorkiina maaha madaxweynihii degaankana maaha onelf maalinka xukun timaado yay waxay ama sixi ama waxay qabanay qaban laakiin today ninka waddanka xukuma isagaa laga rabaa inuu la xisaabto mujrimkii dembi galay isagaa laga rabaa cadaaladii maqan inuu raadiyo maaha inuu maalin walba maaragtay sidii qof waalan maaragtay sidii irtigii macsalada shiida uu dadka saa u soo noqnoqdo hadduu xanuunsan yahay dhakhtar hala geeyo dhakhtar geey ha dhow wartalow dhakhtar geey ha dhow anigu ma aqaano maamul maanta oo dhan inaan nimanka caayon cayrsado mooyaane shaqo kalaba ma aqaano iyo waddan si loo maamulaa iska caddayso way waagtaa arrintaas aad moodaa runtii inuu maamul iyo qaab bulsho loo maamulo iyo leadershipka iyo qualitygiisa inuu garanin baad moodaa sababto waa madaxweyne wuu awooda qofkii dembiilaa inuu qabto wuu awooda qofkii dembi gala inuu xiro wuu awoodaa in haddii wax khalada oonab samaynaysa inuu la xisaabtamo sabab uu maalin walba idaacadaha intuu yimaado bulshada uu nacaybka iyo karaahiyada iyo boogaha u damqinaya ma garanayno nimanka ag fadhiya iyaguna rootiga uu saaxiib rootiga noqday war ninka saaxiibkiina waa la qabtaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walaalka laba jeeraba u hiiliya war markuu khaldan yahay inuu hiiliya markii uu saxan yahay inuu hiiliya markuu khaldan yahay waanu garanay markuu saxan yahay laakiin markuu khaldan yahay seen weyn la war runta u sheega oo dhow wad khaldan tahay waxaad samaysan waa khalad war nimankan wax waddanka ma xukumaan adaa xukumeen maxaad ugu waalatay ammaan sii hala dhow aad iyo aad baan idiin salaam waa idinku dheeraaday sheekada runtii mana ana jeclayn runtii wallaahi baana jeclayn inaan ka hadlo musfo marmarka qaarkood inaa badda sababto waa nin gumaysi keentay awoodo badan ma sii laha iska dhaaf baad leedahay laakiin isagaa ku invite garaynaya oo ku dhahaya madiga hadashaan markaad aragto soo dhiiqadii markaan aragno agoontii iyo naftood hurayaashii iyo qadiyadii ummaddii isagoo ku xiran noqday markaan aragno baana haysayn karin markaa isaga wax aanu reebanayna malaha haddii kuwa gudaha jooga cabsanayaan ma cabsanayno haddaan idin hor joogi lahaana wallaahi sidaa unbaan ku dhihi lahaa tabinkaa aan hadda u hadlayo unbaan ku dhihi lahaa welibana waxaa laga yaabaa ka daran inaan ula hadli lahaa haddii hor fadhin lahaa waxaana wax la arkay maaha nasabnimo ma aha aqoon ma aha madaxweynenimo ma aha maamul ma aha war isku xisho walaal macaan isku xisho caqligaaga ku noqo war dadkan mujaahidiinta ee dadka dhiigooda iyo maalkooda iyo naftooda u soo huray maalin walba dukaan ha ka dhigan war ummaddan hadday wax walba kugu aamineen ciidankoodii kuu dhiibeen hubkoodii kuu dhiibeen maamulkii aad ka qadisay xuquuqdoodii aad ka qadisay oo waddankii iyo degaankii oo dhan ay qowmiyadii kale uga xuquuq badan yihiin ammaan ma siin kartid nicam waa aad ugu jeesjeesaysa ilaa xad intaas aad baan idiin salaamaya dhammaantiin hana la ogaado runtii waxaa fiican an mustafa aad uma sii eedaynayo iyo tiimkiisaba sababtoo ah waa dad qof markuu xukunka joogo wuu isilmaamaa awooduna layn buu isgeliya wuu iscajib yahay ibliiska u macaanaynayo wuxuu ka dhigay inuu isagu libaaxya ugu caqli badan yahay laakiin an waxaan la yaabanahay dadku hadday dad nool yihiin yaa la rabaa inay wada jir u qabtaan oo dhan waxaan naga aamus inay dhahaan iyakaa la rabaa inay saxaan oo dhan maxaad ugu mashquulsan tahay waxan haddaa ummadda maamul haddaad xuquuq soo dhici waay aad ugu mashquulsan tahay wax laga soo tegey war haddaad gorsoori oo wax maxkamad saar haddii kale sharab iyaga inaynu dhow wuu qabsoomi laha inkastoon ogahay etoobiya waa professional way marba waxay ku keenaysaa qof cambaysan oo dhagala oo summan bukman cumyun fahum laa yarjicuun ah oo wax qabanaya aan jirin mararka qaarkood etoobiya dadkay soo xusho waa dad noocaas oo si loola hadlo dhagahooda ayna duleelin oo wax hadal ku gelayn oo dareenkooda aan waxba ogaanin aan waxba ixtiraamin hal maalin ma arkaysid mustafo amxaara wax ka sheegay hal maalin ma arkaysid mustafo oromo wax ka sheegay milyanka soomaaliya qolo ee jigjigo dul fadhiya xuquuqdoodii wandhay idaacadda lama tii karo isagoo taagan baa dadka la soo qaxiyey oo biraha laga aslay oo xabaalaha la geliyey hal maalin idaacadda inta ku tegay war dadkan xuquuqdoodii iyo lacag hala keeno hala caawiyo mana dhihi karo si maalin walba horteenna dhiigooda saa loo daadinaya sida xoolihii shacabka iyaga hal maalin idaacadda inta soo tegay waxaan hala joojiyo moo dhihin xitaa intaasoo xirgudub iyo intaasoo khalada iyo intaasoo maamul xumaa isagoo leh iskaba dhaaf waxaasoo dhan magaaladii jigjigaa boosaskii guryaha lagu isku kala xoogaa ciidankiisa booliiska iyo hay-adiisa garsoorka tuuga ah waxaas waa dembiyo isagoo uu galay oo dad tuuga u magacaabay lana xisaabtamaynin gobolladoo dhanna waa la mid weeyaan waxaasoo khalada isagoo ku jiro isagoon oo uu sixi karo ama uu atleast isku dayi karo ama bulshada intuu hor fadhiisto u dhihi karo baran waa lay amraaya saad ii malaynaysaa meel cidaad iga eedaynaysaa hadduu xataa intaa dhocdi ma eedayseen
dadku sidii kale hadday qori qaadanaya hadday isxoreynaya hadday doodayaan meel kale gelaya marka dhammaantiin waan salaamayaa waa walaalkiin khaliifa cabdi cali intaasaan rabay inaan gudbiyo runtii nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri war qofkiina arka wax qalada gacanta ku jooji hadduuna awoodin afka ku jooji hadduuna awoodin qalbiga ku nac runtii markaan aragno mujaahidiintii iyo dadkii naf iyo maal huray oo lagu diganayay oo lagu jeesjeesay oo la masabidayo iyo dad masaakiin oo gaajaysan oo caawin u baahan oo waxba la siinayn oo maalin walba intii lasoo fariisay la leeyahay bambaris bay qabtaa waa lasoo fursado halkaasa laga geliyey saasaa la yeelo saasaa la yeelay oo hadhowdii markay kacdaan aan wax dawaana loo diraynin isbitaal loo diraynin magdhow la siinayn kuwii dilayna ay saraakiil jaranna ay yihiin oo waxba lagu samaynin runtii arrimaha iyaga aad baynu gubeysaa waynu ka xunahay runtii waxaan dhihi lahaa maamulka dowlad deegaanka uu mustafa hormuud ku yahay ka xishoodaan suudadkiina iska wata boorsooyinka doolarada u qaada dowladda federaalka wariyaasha amxaarada ka dhirjiya doolarka u diroon ammaan beenan ammaana dhaha kaniisadaha iyo qaysiyada amxaarada mid walba meeshiisa ku biilo intaasoo bilyan oo jawaanaha boorso doolar u geeya haydan dhaan waa halyey qaran ee amxaara u soo baxo xayla salaasi walaalkiya wax walba xaq baad u leedahay laakiin at least ma ka dayn kartaan musabit waxaan ka codsanaynaa maaha waxaasoo dhan lacagaar aad dulminaysaan iyo hantidan aad meelaha geynaysaan iyo waxaasoo dhan iyo maaha iyo xuquuqda soomaalida ee maqan war ilmaadeerayaalo musabitka ka daayay jabhadda war jabhaddan dhiig iyo maal iyo naf usoo hurtay soomaali badbaadinteeda ee aan waxba la harin waqti aan hiil iyo garab midna haynin soomaali oo dhanna waraabo ku tahay walaalayaalow nimankaa naftooda horiyaasha ammaansiiya wixii kaloo dhan iyo qabiilada rabtaan cayrsada dadka rabtaan cayrsada jabhadda iyaga ammaan siiya intaasaan kusoo gudgaynaya hadalka aad baad mahadsantihi dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu